Bismillah, assalamu alaikum. Kusoo dhawaada mar kale koorsada HTML. Taariikhdu waxay tahay 20 bisha 3 2021. Waxaan filayaa in maalmahan si kooban hakad ugu yimid darsigan, laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa halkan aan ka sii wado biidhnillah. Waxay inoo joogtay markii u dambeysay aan soo dhaway wax yar. Waxay inoo joogtay HTML images, qaabka sawirada loo geliyo website-yada. Waxay ka kooban tahay dhowr qayb. Waxaan soo qaadanay qaybta koowaad. Hadda waxaan qaadanaynaa image map waxa la yiraahdo. Qaybta koowaad waan soo qaadanay. Qaybtan hadda oo furan aad arkaysaa HTML images. Page-kan waan soo qaadanay. cashirka ugu dambeeyaan uga hadalnay aan usoo gudbo marka mawduuca maanta. Image map waxaa la yiraahdaa hal sawir balse dhowr qayb loo qaybiyey. Tusaale ahaan sawirkan intaan hadda aragtaan waa si guud waa hal sawir balse wuxuu kusii kala kooban yahay 3 qayb: laptop, mobile iyo coffee. Mid kastaba markii aad si gooni ah u riixdid waxaa ku soo baxayo waxa sida gaarka ah kaaga muuqda meeshaas. Waxaa si gaar ah loogu isticmaalaa arrintan oo kaleento markii la rabo in arrimo tusaale ahaan hadda sida aad aragteen waxaa kaloo la mid ah qaaradoo kaleento. hadda fiiri Somali map oo kale aan geliyo Somali map. Okay, marka Somali map oo kale saan uu yahay oo aad rabtid inaad aad gobol ama deegaan aad uga hadashid. Hadda intaan oo dhan hal sawir isku yihiin ama isku yahay. Markaan rabo sawirkii inaan aan qayb Soomaaliya, waqooyiga Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya ama gobolka Banaadir oo kaleeto inaad meel si gaar ah uga hadashid oo halka sawir ka mid ah aad active ka dhigtid waxaas ku saabsan yahay. Marka ulajeedka waa intaas. Hadda Africa oo kale hadaad gelisid tusaale ahaan Africa. si guud Africa corona oo kale aad rabto inaad ka hadashid. wadamada sida ugu kala badan yahay heerarka uu marayo kaleeto wixii si guud waa hal sawir balse inta hadda waa hal sawir. Marka Sudan oo kale inaad si gooni active u noqoto, Soomaaliya oo kale active u noqoto, Ethiopia oo kale. Marka waa hal sawir laakiin different hotspots leh ama clickable areas, meelo la click gareyn karo loola jeedaa. bal cashirka aan fiirino wuxuu leeyahay HTML image maps. With HTML image maps you can create clickable areas on an image. Markaad adeegsanaysid HTML image map waxaad samayn karaysaa clickable areas, meelo oo mouse-ka lagu riixi karo on an image oo sawirka dushiisa ah. HTML image the HTML map tag waxaa la isticmaalaa map tag defines an image map. Marka tagga meesha ku aragtid wuxuu qeexayaa in waxaasi uu yahay image map. Taggaasaa loo isticmaalaa. An image map is an image with clickable areas. Waa image map waxaa la yiraahdaa sawir wato meelo la click gareyn karo, la riixi karo, links more than one. There are the areas are defined with one or more areas tags. Marka waa kaasa waa hal meel ama meelo badan oo la riixi karo leeyahay. Try to click on the computer, phone or the cup of coffee in the image below. Waxaa lagu yiraahdaa ku dhufo sawirka computerka ama phone-ka ama coffee-ga, koobka coffee-ga ah sawirka hoose. Tusaale computerkan ku dhufto aan aragno. Computerka inoo soo baxay waa taas waa aragnaa. Haddana aan xiro mobile-kan ku dhufto waa kaas mobile-ka ii soo baxay. Haddana coffee-ga aan ku dhufto waan aragnaa iyadana.
waa one picture but with different clickable areas, different links. So habku marka u samaysan yahay tusaale HTML source code-ka habka maaragtay code-ka uu ka samaysan yahay waa marka kan hadda inoo muuqdo. So code-kiisa marka waa kana waxa koo la isticmaalaa taggan img source waa kii normalka ahaa laakiin waxaa la raaciyay use map kaasaa la raacinaa. So kadibna waxaa use mapka haddana waxaa lagu qoraa map name aad qoraysaa. map name-ka waxaa qasab ah inuu use mapka uu ku magac ahaado. So waan arki doonaa dib malahan. Okay, try yourself yuu yiri aan ku dhufan aan tagno. habka u samaysan yahay waa kana, habka u samaysan yahay waan aragno kaasa waa qaabka uu soo muuqday habka loo sameeyo waa iyo maaragtay wadooyinka la raacay. intaan hadda waa si guud marka si sharaxaad ah bal aan dul tagno. waxaa lagu yiri how does it work, habka sida u shaqeysaa. The idea behind an image map, fikradda ka dambeysa image map, is that you should be able to perform different actions depending on where in the image you click. يعني fikradda ka dambeysa image map waa inaad awood u leedahay inaad dhaqan geliso hawlo ficilo kala duwan oo ku xiran meeshaad image ka riixaysid. يعني waa hal sawir oo si kala gooni ah loo kala qeexayo warkii kooban. To create an image map you need an image. si aad u samayso ama u abuurto image map waxaad u baahan tahay marka hore image iyo some HTML code ayaad u baahan tahay that describes the clickable area kuwaasoo qeexaya halka la riixayo. The image is inserted using the img tag. sawirka marka hore waxaa lagu soo geliyaa iyadoo la adeegsanayo img tag. just waa sida normalka ahaa aan cashar hore aan kusoo qaadanay sida sawirka loo soo geliyo website-ka browser-ka. Okay, the only difference from other images is that you must add a use map attribute. So farqiga kaliya uu sawirada kale kaga duwan yahay kuwa caadiga waxaa waaye in ay tahay inaad ku dartid use map attribute-ka use mapka kaasaad adeegsanaysaa. So just waa kana as normalki img sourcigii sawirka magaciisa alternative-kii workplace waxa uu ahaa dabcan use mapka marka waa kana intaana raacinaysaa. So the use map value starts with the hashtag. So marka wuxuu ka bilaabda hashtag use map waxaa meesha hadda work map ay ku qoran tahay magaca rabtaa ka dhigi kartaa ama gelin karaysaa number aad gelin karaysaa calaamada gelin karaysaa laakiin waxaa qasab ah inuu ka bilaado hashtag la raaciyay magaca image mapka. magaca wax kastoo noqon karaa. sidoo kale and is used to create relationship between the image and the image map. So marka image mapka ayuu xiriirkooda sameynaya. So image mapka waan arki doonaa hadda fiir waxyar gadaal u laabano okay image-ki waa kana iyo image mapka fiir marka yani map name-ki so isku xiriirna isku magac inay ahaadaan la rabaa. So marka the image okay tip marka you can use any image as an image map. sawir kasta ayaad u adeegsan karaysaa as an image map. create image map marka samaynta image mapka markaad samaysid kadib waxaad raacinaysaa map element raacinaysaa oo kii hadda aan arkayna ah map element raac. kadib the map element is used to create an image map ayuu sameynaya and is linked waxaa lagu xiriirinaa markaas to the image sawirka lagu xiriirinaa iyadoo la isticmaalayo by using the required name attribute-keeda la isticmaalayo. So name attribute marka waa kana map name. So kan waa inuu ku magac noqdaa mapkii kore
markii la sameynayay intii yar hadda idin tusinaya le waxa hadda laga hadlayo waa intaan. Okay, map name kan waa kana waa inuu ku magac ahaadaa use mapka waxa aad meesha ku qortay ayaa la rabaa inay inta ku qoran tahay kaliya kaas hashtag raacsiisan. Okay, so okay intaan hadda waan aragnaa the use map value starts with hashtag oo ka bilowdaa. Okay, intaan hadda waan akhrinay ku celiso haba mataraayo. Okay, the name attribute must have the same value as the img's use map attribute. waa inta hadda aan sheegay name attribute-ka waa in uu lahaadaa same value-ga waa kana kan waa inuu kii kale ka horeeyay uu ku magac ahaadaa haddii kale ma soo yani ma shaqeynayo. So the areas marka meelaha ay tahay sameynta meelaha marka areas then add the clickable areas kadibna waxaad raacinaysaa aad ku daraysaa clickable areas. Clickable areas are defined by using area element. kuwa marka waxaa lagu qeexaa iyadoo la adeegsanayo area element yani elementiga la yiraahdo area. So qaab muuqaaleedka ku soo baxay marka qaab muuqaaleedka waxaa ka mid ah okay, you can define the shape of the clickable area. Shape-ka ama qaabka waxaad ku qeexi karaysaa clickable area and you can choose one of these values. Value-yada qiimaha yaasha hoose mid ka mid ah ayaad adeegsan karaysaa. Marka maxaa ka mid ah marka kuwa la adeegsanayo react defines a rectangular region yani qaybtana ka mid ah reactiga marka wuxuu qeexaa afar geesoodka uu sheega uu yahay. Circle dabcan waa wareeg defines a circular region ayuu qeexaa asigana. waxaa kaloo jirto poly defines a polygonal region laba gees ama wax yani circle-na aan ahayn afar geesna aan ahayn. sidoo kale default ayaa jirto defines the entire region marka defaultiga waa yani sawirka guud waa kaas waa midka dhammaantiis waa gees ilaa gees just one picture one clickable area isku wada noqona oo whole ah laakiin dhammaan ah. You must also define some coordinates to be able to place the clickable area on the image. sidoo kale waa inaad qeexdaa maaragtay coordinates to be able to place the clickable. So waa kuwana marka coordinates yani nambaradii waxaad adeegsanaysaa marka so the coordinates 34 is located 34 pixels from the left margin and 44 pixels from the top. يعني انت isu jiraan waa inta isu jiraan cabrada isu jiraan waaye dabcan tools baad u adeegsanaysaa. So the coordinates 270 is located okay 270 pixels waa inta dhibcooyinka muuqaalka gudadka uu qaadanayo from left margin iyo 350 pixel oo kor ka imaanay yani cabirada hadda nambarada inta ku qoran waxay gaar u yihiin sawirkan inoo muuqda gaar u yihiin. So marka sawir kastaba wuxuu leeyahay its own measurement يعني cabirkiisa goonida uu leeyahay. So now we have enough data to create a clickable rectangular area. So marka intaa kor aad haysatid waa in marka clickable area lagu sameyn karo. Example wuxuu yiri area shape sana loo qeexa marka rectangular laga soo gaabiyay coordinates laga soo gaabiyay okay cabirkii oo marka kuwa kor u gaarka ah waay href wax lagu xiriirinayo marka linkigi computer.html. So try yourself yiri okay waad click gareyn karaysaa isku day karaysaa. This is the area that becomes clickable area waa meesha oo riixmaysa waaye and will send the user to the page. qofkan waxay u diraysaa isticmaalaha waxay u diraysaa computer.html ama htm. So html iyo html lagu soo gaabsan karaa hadba wixii magaci markaas aad ku qortay baad
isticmaalaysaa. Okay, shape noocan kale hadda circle hadda la adeegsana for the coffee waa markaan. So to add a circle area si loogu daro meel wareegsan, first look at the coordinates of the center of the circle. Marka hore waxaad maaragtay locationka cabirkii aad sameynaysaa oo circle-ka ku fariisanayo. So then specify the radius of the circle. Haddana intii aad qeexaysaa oo ku imaanayo 44 pixels kan oo kale tusaale ahaan 44 waaye. So now you have enough data to create a clickable circular area. Marka intaa la sameeyo hadda waxaad haysataa meeshii oo wareegsaneed oo la riixi lahaa. Tusaale ahaan hadda kan kor oo kaleeto waa kuwa marka coordinateskiisa 337 30044. Okay, try yourself waa isku sii dayi kartaa. This is the area that becomes clickable. waa meesha riixmi doonto waxaynu qofka isticmaalaha u diraysaa coffee.html. Okay, shape poly marka polyga waa kuwana marka sigana. The shape poly contains several coordinate points. Kan marka waa dhinacyo kala duwan ayay u baxaysaa marka clickable-kiisa. Waa circle ma ahan, afar geesna ma ahan, soo jihooyin kala duwan oo marka cabirka laga soo qaadan ama laga cabiraa, which creates a shape formed with straight lines, a polygon. So this can be used to create any shape. Marka shape kasta ayay samayn karaysaa loo adeegsan karaa, like maybe a crescent shape. Hadda tusaale ahaan cunada crescent-ka la yiraahdo oo quraacda badana galbeedka laga cuno ka mid ah sida loo sameeyo ku arki doonaa. How can we make the crescent in the image below become a clickable link? Sidoo ku noqon lahaa haddana la tusinaa. So marka rootiga waa kana ama crescent-igi. So hoos aan usoo degno, we have to find the x and y coordinates for all edges of the crescent. Marka hore waa in x iyo y coordinates kala helo dhammaan geesaha crescent-iga uu leeyahay, dhammaan geesihiisa meel kasta corner ah, gees kasta geesaha kale ka baxsan. So marka waa kana hadda sawirka ayagoo wixii la diyaariyo la sameeyey. So intaa kadib marka la helo maxaa xigayo? The coordinates become empires. laba isugula socdaan, yani laba iskula socdaan, labo markas kan kaas saas marka empires. Okay, one of the axis and one for the y axis. So area shape poly y qaabka shape la adeegsado poly. So coordinateskiisa marka coordinateskiisa waa kuwana marka saas uu dheeriyaa kaasoo kaleeto. So this is the area that becomes clickable. So waa meesha riixmayso oo qofka isticmaalaan u dirayso crescent.html. So marka waa kana intaan hadda calaamada buluuga la dul saaray waay. Image map and JavaScript xiriirka ka dhexeeyo. Clickable area can also trigger a JavaScript function. Add a click event to the area element to execute a JavaScript function. So meesha clickada marka iyada loo adeegsadaa JavaScript. So example, here we use the onClick attribute to execute. We use the onClick attribute to execute a JavaScript function when the area is clicked. Okay, marka meesha la riixo waa map name, work name, okay, area-dii, okay, script function, my function, you click at the coffee. So is haddaan tusaalaha haddaan ku dhufano aan aragno. internetka marmar. Okay, internetka iga baxay. So reconnect aan leeyahay taas ila dulqaata. So reconnect. Okay, now it's connected. Okay, waa kana. Okay. Image maps, click on the coffee. Okay.
hadda coffee-ga ku dhufo si JavaScript function uu dhaco fiir coffee-ga ku dhufanayna okay coffee-ga kala ma shaqeynaa marka okay an embedded page on this message click the coffee cup wakaas coffee cup kaad ku dhufatay intuu qoraalkaas igu siino markuu siino markaas ku dhufanaa sabaxa okay kale hadaan ku dhufto maahan just coffee-ga waay coffee-ga ku dhufto qaanada sare ay furmayso ay sheegayso okay let's move forward in summary marka chapter summary waa khulaasada chapterka okay use html map element to define an image map waxaad isticmaalaysaa elementiga la yiraahdo map si aad u qeexdo oo maaragtay image map inuu yahay use html area element aad isticmaalaysa si loogu qeexo clickable area-da oo yani in map image map ku dhex jirto sidoo kale to use the html use map attribute waxa u adeegsanaysaa mg element sababta oo ah to point si aad loo tilmaamo to an image map okay html image tags tagyada marka waxaana ka mid ah img sabir sheegaysaa map wuxuu sheegaa image map inuu yahay area wuxuu sheegaa meesha la riixayo image ku dhex jirto image mapka picture defines container for multiple image resources sidana maaragtay meesha ay ku wada jiraan sawiro badan oo kala duwan resourcigooda okay for complete list of available html tags visit marka wixii dheeraad ah oo html tags la xiriiro page-kaasaad boqonaysaa html tag reference aadaad u mahadsantihiin cashiradan iyo cilmiga ma dhammaadaan markastaba intii aan karno iyo sidaan u karno ayaan u samayn doonaa waxaan rajeynayaa in maaragtay wax uun qofka ka fahmo aragti guud iyo faham guud aadaan idin salaamaya tan iyo intaan ku kulmi doono cashirka xigo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh